waan ku salaamay daawada meel walbo aad joogtid ku soo dhawow qaybta xigta ee sheekadeena ku saabsan mashruucii la dagaalanka nuurka. sheekadaani waxaa qoray Cabdulaahi Cismaan Jaamac anigoo marcadda ayaa kula socodsiinaya. soo gudbinta sheekadan waxaa taabageliyay Isbitaalka Marwa Fertility Center. ma ogtahay inay jiri karaan xanuuno kuu diidaya in aad ilmo dhasho, diintana kuu ogoshahay raadinta ubadka alla ayaa bixiye. fadlan booqo Marwa Fertility Center. qaybta xigta ee sheekada waxay ku bilaabanaysaa wadaadka Soomaaliga ahi wuxuu u baahan yahay inuu waaqici noqdo oo uu barto ciyaarta qeyrkood ay dheelayaan iyo shaxda ay dhigaan kuwa sharka faafiya. waa inuu kasmo shilis iyo sidoo kale ogaal buuran u lahaadaa hadba waayaha la marayo dhanka mawjada sharku ay ku abbaaran tahay. haddii aanay sidaasi samayninna ma difaaci karaan ummadday hormuudka u yihiin iyo manhajka ay u taagan yihiin toona. islaamku waa murti, waa in la helaa murtiilo xambaara murtidaasi oo tuurta u rita inay dhul dhacdana ka dhowra. qur-aanka haddii aan la helin dowlad fulisa oo ku dhaqanta lama helayo nolol quruxsan oo murti ku dhisan. tan la ilaalinaya inaanay dhicin oo geed dheer iyo geed gaabanba loo fuulayo sidii dhusinka hoose loogu sii aroorin lahaa ee aanay dhowaanahaas uga soo baxdeenna waa taa. waxa ayse u eg tahay in waqti dhow aan la joojin karin oo ay talo faraha sharwadayaasha ka baxayso, maadaama oo la toosiye ahlu xaqiina uu yimid mar labaad isaga oo waaye araga. waxaana soo gaadha qayladhaan cusub oo ka imaanaysa gacanka cadmeed, baabulmandab iyo badweynta hindiya oo ay ka dilaacday burcadbadeed. arrintaasi xiise ayay gelisay naftaydii. waxaan raadinaya inaan ka warkeeno, waayo waxaan ogahay inay ka mid tahay ciyaar cusub oo la doonayo in ciidamo lagu keeno badda cas. si aan u xaqiijiyo ayaan tikid degdeg ah waxaan ugu goostay magaalada Roma, gaar ahaan Vatican City. halkaasi waxaa degan ragga bixiya talooyinka amniga ee dunida ugu halista badan. xogaha xasaasiga ahna iyaga ayaa laga helaa Vatican City. dad waxay u haystaan inay tahay magaalo diimeed, balse waa meel lagu go'aamiyo siyaasadda caalamka, dhaqanka iyo dhaqaalaha. kaydka dahabka ee ugu badan adduunkana waxa uu yaallaa halkaas. waxaan la kulmay qolo aan saaxiibo dhownahay oo la yidhaahdo Star Trek, oo ay macmiil u yihiin shirkadaha amniga ka shaqeeya ee ay ka mid yihiin Blackwater, Saracen, B10 Bullet iyo qaar badani oo kale. Tom Kawasaki oo ah xeeldheeraha badaha u qaabilsan shirkadda ayaa igula ballamay maqaaxi bun oo lagu magacaabay Italiano 360. waxaan weydiiyey Tom waxa soo galay baddii caseed. wuu dhoolla cadeeyay kadibna si degan ayuu igu yidhi, arrimo amni ma ahan hawshaas ee waa shaqooyinkii Club of Roma oo ku howlanaan jiray. maxaad aniga iga soo raadisay? waxaan kadibna ugu jawaabay waxaan u haystay howlgalla dhanka amniga ah. cabaar ayaanu wada fadhinay, waan ka soo tegay markii dambe aniga oo xog fiican ka soo helay. waan iskaga soo dhoofay Talyaaniga. waxaan howlo shaqaa u tagay magaalada Kuala Lumpur oo dalka Malaysia ah. hotelka Seri Pacific ee xaafadda Jalambutra ayaan degay. waxaan la kulmay Chai Zoom, wuxuu ahaa la taliyaha dhaqaale iga caawinaya sidii aan lacag maalgashi uga heli lahaa HSBC Banki. lacagtani waxaa ila doonaya ururkayga oo doonaya inay igeliyaan ganacsi, aniguna raalli kama ihi, iyaga un ayaan ku qancinayaa. beereg ayaanu habeenkii wada xidhiirnay oo iga wareystay inaan qaatay lacagtii ii qorshaysneed. waxaana wax ka weydiiyey arrimaha uu ka ogyahay badda cas. beeregse wuxuu igu yidhi arrimahaasi way ka sarreeyaan waxa aan ka hadli karo. halkaas ayaan ku dhaafay, kamana aana sii harin ilaa aan ogaado ciyaarta meesha ka socota iyo cidda wadata. internetka ayaan baaritaan ka bilaabay. markiiba waxa ay soo jiitay Muammar al-Gaddafi oo qaramada midooba horteeda ka cadeynaya inaanay jirin burcadbadeed oo duulaan lagu yahay qeyraadka Soomaalida. waana nin wax badan ka ogaa dunida qarsoon iyo qaabka la isu shirqoole ee mareegaha la isugu qoolo. hawshise waa duulaan ka weyn qeyraad. waxa aan doonay inaan wax ka sii ogaado sababta ciidamada intaani la eg oo weliba heeganka sare ku jira ay u joogaan badda. judhiiba waxaa muuqatay in loo buunbuuniyo si weyn qadiyadda burcadbadeedka ee ka dilaacday badweynta India. waxaa wararka ka saari waayay saxaafadda cari edegta. waxaa laga qoray in ka badan 100 buug oo ay qoreen qoraayadii ugu saameynta badnaa, waxaanay ciwaan ay kaga dhigeen Piracy at Sea, New Laws at Sea, Terror on High Seas, History of Somali Piracy iyo kuwa kale. tiro ma lahan buugaagta laga qoray. qaramada midoobe ayaa go'aamo ka soo saartay in ciidamo la geyn karo. waxay soo jiitay oo xiisaha weyn lahayd waxay ahayd arrin ka timid bara ku xeel dheeraa afafka oo la yiraahdo Professor Tommy oo bartiisa Twitterka ku soo qoray inta uu soo qaatay sawir markab dagaal oo weyn iyo laash yar oo Soomaali AK-47 la saaran yihiin. waxaan difaacinaa adeegsiga afka ee lagu xadgudbayo. kee ayaa burcadbadeed ah labadan? ma markabka weyn mise laashka yar? dunida aynu maanta noolnahay wixii la doono ayaa dadka la aaminsiiyaa.
kama aanan harin baaritaankii waxaan helay genaraal botonof wuxuu ka tirsanaa sirdoonka dibadda ee ruushka ee FSB. warbixin uu siiyey madaxdiisii oo ay daabacday mareegta WikiLeaks ayaan xog ka soo dhiraandhiriyey. warbixintaasi waxaa lagu sheegay inuu halkaasi ka soo baxayo nacab dunida halis ku ah in laga hortagaana ay lama huraan ay tahay. waa maxay nacabka la sheegayo ee dunida beddelaya? yaab, malaha waa cadow mala awaal ah oo dana kale ay ka dambeeyaan. meel hal lagu qalay hadalna kuma yara, hilibna kuma yara qadiyadaasi waxay noqotay dhacdo ah hasha adduunka u qalan. hadalhaynteeduna ma aysan yarayn, oo dadyo badan ayaa xiiseynaya inay ogaadaan sababta ciidanka xooggaasi lihi u joogaan bad yar oo badda cas oo kale ah oo ay ku meersan yihiin dowlado awood ahaan aad u burburay sida Yemen iyo Soomaaliya. jasiiradda Socotra ayuu baaritaankii ka socdaa. qolo ayaa ku oranaysa waa Stargate ama waa Portal to Another World. qolo kale waxay oranaysaa cadaab ayaa meesha ka soo baxaysa oo waxaa jira dilaac. mararka qaarkii ayaa waxaa la sameeyaa warar been abuura si loo lumiyo ujeedada dhabta ah. waxa ay tahayba waqtiga ayaa qarin doonin ayaa isaga dhaafay arrintii. sanadkii 1980kii ciidankii Faransiiska ayaa arkay mowjad xoog badan oo badda hoosteeda ka bilaabantay. kadib markii muddo ay cilmi baaris ay ku wadeen ayay noqotay wax ka baxsan awoodooda cilmi, waxaanay u qayshadeen ama u qayla dhaansadeen ciidamada badda ee Mareykanka ee Mariniska loo yaqaano. iyagana baaritaankii ayay ku bilaabeen dilaaca badda hoosteeda ka socda ee Faransiiska uu u bixiyay Vortex. waxa ay ku sheegeen inuu yahay albaab ka furmay gunta hoose ee badda. arrintii ayaa ka qaraweynaatay Mareykanka qudhiisa. markaas ayuu ka qaybgeliyay Yurub iyo Ruushka. waxa uu u sii yeedhay Shiinaha iyo Jabaan oo baaritaanka wax ka bilaabay. howlgalkaasi midowga Yurubna waxa uu sameeyay ciidan badeed oo gaar ah oo ay ugu yeeraan Atlanta Operation. ma cadda sababta midowga Yurub ay ku doorteen magaca Atlanta. laga yaabay inay ula jeedaan wadamada ku teedsan badweynta Atlantic. waxaase jira sheekooyin laga soo xigto magaalo dahab ka samaysan oo ku qarsoontay badda, lana rumaysan yahay inay mar soo bixi doonto oo loo yaqaano The Lost Atlantis. dhanka dunida muslimka marka laga soo aqriyo waxaa loo yaqaanaa Atlantis Iram oo qur-aanka ugu jirta Irama Dhaatil Cimaad. cimaad oo ahayd magaalo reer Caad oo uu dhisay boqorkii reer Caad ee la oran jiray Shaashid Cimaadudiinkii labaad. waxaan dhulka ka dhisayaa ayuu yiri jannadii 8aad. markaas ayuu dahab iyo qalin waxa uu ka dhisay magaalo qurux badan. waxay ku taala meel u dhaxaysa Maydh iyo Cadan. waxaa ku sii hakan jiray ganacsiga fooxa, beeyada iyo dahabka ka yimaada Ovir waxaa la tuhunsan yahay inay sanaag tahay. sidii aan baaritaanadaasi u xiiseynaya waxaa laygu casuumay shirkii World Economic Forum ama kii dhaqaalaha oo ka dhacaya magaalada Davos oo Switzerland ah. shirka inta badan waxaa yimaada madaxda caalamka. waxaa lagaga hadlaa dhaqaalaha caalamka iyo duruufaha ku gadaaman. waxaase garab socda shir duceedyo lagaga hadlo arrimo badan oo aan la doonaynin in saxaafadda ay ogaato ama ay u soo baxaan dibadda. waxaan fariista miis lagu gorfeynaya arrin xasaasi ah. waxaa miiska la soo dhigay inay jiraan dad badan oo dunida ku nool oo aanan qaadan ribadu. sidee ayeese u dhacday in nidaamkeena uu ka hirgeli waayo dhulkaasi? dadkaas culayska ay nagu hayaan ma qaadan karno, waayo waa dad samada laga aqbalayo. waa inaynu kala dagaalanaa ducada laga aqbalayo oo aynu ribada cunsiinaa. waxaa la isla afgartay in loo wareego miiska 8aad ee wareegsan. miiska 8aad ayaana fiidkii fariisanay. waxaa nagu soo biiray koox cusub oo ka socota Round Table iyo koox kale. waxaanay farta ugu yeereen World Bank iyo IMF xubno matalayay. concept note la ii soo qoray ayaa gacanta la iga saaray. waxaa la amray in lacag badan la geliyo dhulkaasi inta ka horeysa 2012. waxay ku jawaabeen in dhaqaalaha adduunka qalqal uu ku yahay se gobolkaasi geeska Afrika inay tahay battleground ama goob dagaal oo la isku wajihi doono Shiinaha iyo xulafadiisa oo soo farageliyay. kulankaasi kadibna waxaan u dhoofay Djibouti oo la igu sii diyaariyay gabar aan ku guursado. gabadha waxaa sii diyaariyay koox aan ehelnahay. waxaana uu guurka uu ahaa nooca loo yaqaan arranged marriage ama guurka isasiinta. meherka iyo aqalgalkiiba waxa uu ka dhacay hoteelka Kambiski. waxaana uu ahaa hotel markaasi farta laga qaaday oo cusub. jaceylkaasi cabsi baa ku lamaaneed oo kuma aanan niyad sameyn, waayo ma aanan ahayn qof la dhacsan isasiinta iyo dhabargaraaca oo labaduba ah dhaqan duug dulmi ku dhisan. waxa ururka dhexdiisa caado ka ahayd in la isku dhiso xubnaha ka tirsan Dag Marow. ujeedaduna waa inay dantooda ay ku fushadaan dadka isku dooraan. hase yeeshee gabadhan ima aysan caddayn inay ka mid tahay ururka iyo in kale. shaki ayaa biyo dhigay laabteeda oo noloshaydii guur ee farxadda ahaan lahayd ayaa cariiri isku rogay. waxaan bilaabay inaan xiriiradeeda ka qarsada xaaskayga. mar aan ka soo baxay bishii dahabiga ahayd ama 7 ee guurka ugu cajiibsan ayaan dalkii ku noqday.
waxaan arkay xildhibaanadii baarlamaanka oo ka doodaya waa la keeni karayaa baananka ribada ku shaqeeya iyo lama keeni karo. goortaas ayaan dareemay in dhagartii lasoo dhigay ay si xowli u shaqaynayso. waxaa la isku hayaa waa nidaam dhaqaale oo ribada ku dhisan, halka dadku ay yihiin muslimiin diintooda xaaraantinimaysa ganacsiga ribada. wareer horle ayaa ka bilaabmay qodobkaasi. wadaadada ayaa khudbadihii jimcaha ku duuray ribada. iskudaygaasi koowaad ma uusan guulaysan, laakiin hirgelinta nidaamka ribadu waa mid cid kale ay rabto oo ay dabada ka riixayso. doqomo u sacabtumayaanna dalka way ka buuxaan. waxaan dhex galnay aragtidii dadka iyo waxa ay ka qabaan. qolooyin badani waa ay diidan yihiin, qaar dayaysan oo odhanaya wadaadka horumarkeenna ayuu kasoo horjeedaana waa ay jiraan. wadaad horumar hortaagani ma jira cadaabta iyo naar ayuu kaaga digayaa. fahanka lunsan haddii lasii faafiyo waxaa laga dhexlaa fowdo lagu fidnoobo iyo burbur. dunida muslimka nidaamka dhaqaale ee ribadu waa ku faafay, si weyn ayuuse u aafeeyey bulshadii, waana waxa burburin kara iimaankooda. bilo kooban dabadeedna waxaa gudaha soomaalida soo galay lacag fara badan oo uu soo daayay bangiga dunida. xaddiga maalkaasi ama lacagtaasi waxaa looga gol leeyahay in soomaalida oo aanan jeclayn maalka la jeclaysiiyo, si hadhow si fudud ay ugu saxiixaan kheyraad badan oo ku duugan dhulkooda. bilowgii adduunye jeceylka soomaalida ayaa halkan ka ambaqaadaya. waxaa la taliyaal iyo mashaariic badan lagu bixiyey. dowlad ekayaasha laga abuuray dhulka soomaalida dhexdeeda. kooxo aanu badnayn ayaanu samaynay oo qurbajoog u badan oo la siiyey lacaga ay ku bilaabaan ganacsiyo yaryar. ganacsiyadaasi yaryarna waa kuwa dhaqan oo la doonayo in bulshaday u qaabeeyaan si ka duwan siday u nool yihiin. waxaanu ganacsiyadaasi u naqaanaa agencies of change. waa buundada dhaqan ee u dhexeeya galbeed iyo waqooyi. inta badan ganacsiyada la maalgeliya shuruudaha lagu xulayo waxaa ka mid a inay ugu magacdaraan meheradaha reer galbeedka. magacyada carabiga iyo soomaalida lama soo dhoweeyo, lamana aqbalo. meheradaha cusub ee ugu horeeyana il gooni ayaa lagu eegi jiray. goobaha ganacsi ee sumadda magacyadooda lagu arka al waxaa lagu tirin jiray dhaqan carabnimo. runtuse waa inay u tiiriyaan baadisooc islaam oo ka muuqata. waxa aan gudagalnay qorshaynta howlihii dhaqan ee aan horey u waday. dowrkan waxaanu xoogga saarnay in kor loo qaado dhiirigelinta waxqorista. qoritaanka waa hub badan oo dunida lagu bedelo. muhiimadda waxa loo qoraya ayaa saameyn togan iyo mid tabanba ku yeelan karta akhristaha fikirkiisa. oo qoraagu waa qaabeeyaha fikirka akhristaha. waxa ugu weyn ee aan raadinayno waa in la helaa qoraayo qora liberal literature oo toos uga hadlaya dareennada galmeed ee jinsiga. waxay keenaysaa in da'yartu ay sumowdo garashadooda oo ay wasaqowdo quluubtooda. helidda cid fulisa iyo hirgelinta mashruucaasi waa mid aanu siin jirnay mudnaanta koowaad. waxaase noo muuqata inay tahay mowduucay adag tahay in dad sidaani gob u ah laga dhex fuliyaa. qodobkaasi wuu nagu adkaaday, waana lagu dhici waayey in loo bareero ilaa la helo inangumeed aan nasab ahayn oo xumaantan afuufi karaya. sidaasi daraaddeed waxaa loo wareegay in la xoojiyo heesaha oo ay fududahay in fariimahaas lagu faafiyo. dhallinyaro dowra ayaa fanka jecel oo ku xihan, waana qalabka lagu jihayn karaya bulshada. waa midi laba af leh oo sidii la doono loo adeegsan karo. soomaalida intooda badanna waa ummad asalkeeda uu kasoo jeeda carabta oo jecel fanka iyo suugaanta. qofka doonaya inuu saameyn weyn ku yeesho qofka soomaaliga ahi waa inuu fahmaa inuu mari karo dareennada fanka. fanka soomaaliguna waa mid anshax ku dhisan marka laga reebo hal meel oo aan u aragnay in laga geli karayo. waa heesaha aanan lahayn dhaqan togan oo wanaagsan. bulshada aanay aragti fiican aysan ku haysanin. annaga oo aanan fulin hubaynta fanka ayaanu si degdega uga baxnay magaalada nairobi oo la igu casuumay shir looga arrinsanaya aayaha qarannimada soomaalida. kaas ayaana mudnaanta la siiyey. sidii ayaana uga qayb galay oo aan ku agab urursaday. shirku wuxuu ahaa mid high profile ah ama heer sarreeya. waxaana fadhiyay xeeldheerayaal mug iyo miisaan leh, weliba nooca bulshooyin ka qaabeeya. afka ingiriisiga waxaa loogu yeeraa social engineers. soomaalida iyo dunida muslimka way ku yaryihiin dad sidaani oo kale u diyaarsan, ama waxaa la odhan karayaa maba jiro qof sidaani u howlgeli kara. waa sida ku qoran buugga qof kasta oo ka tirsan xubnaha social engineerska waxaa la baray cilmiyada anthropology, astrology, numerology, history, psychology, sociology, linguistic, politic, economic iyo philosophy. waa dad muddo badan lagu soo tabcay oo ka soo warrami karaya qaybaha kala duwan ee cilmiga iyo falagga la xidhiidha. bulshooyinkana u qaabeyn kara una qatali karaya si xeel dheer oo xanuun badan oo aanay dhaadanaynin saddexda Soomaali la baday inay horjoogaan. Suuriya raacu, saba ammaanku iyo seeflaboodku ma tahli karaan inay raggan ay la dhigaan shaxda. ciyaarta ay ciyaarayaan way ka sarreysaa ciyaar caruureedka hoggaanka Soomaalida uu ciyaaro.
social engineerska oo aan macno ahaan ugu yeeri karayna dhisayaasha ayaana hal tusaale idinka siinayaa tabta iyo xeeladaha ay u qaabeeyaan dadyowga loo dirsado inay u qaabeeyaan sida loo qorsheeyey. aynu ka daldaawanno xaaladda dalka Rwanda. guyaal hore ayay dhisayaashu ay ummadaasi u qaabeeyeen si siloon oo ay ka dhexlaan silic badan. dadka Tuusiga tirada yar ayay dhisayaasha u dhiseen taariikh beeneed khiyaali ah oo oranaysa Tuutsigu qaab dhismeedkiisa jirkooda oo aad u qurux badan iyo sanqaroorka dhuuban ee dheer ayaa muujinaya inay ka garasho iyo karti badan yihiin Hutuuga foosha xun ee sanka ballaadhan. si kas ah iyo ku talagal ayay dhisayaashu Tuutsiga u siiyeen fursadaha waxbarasho, waxaana gacanta laga saaray maamulka dalka waqtigii xornimo ismoodka loo dabaaldegayay. halkaas ayaa laga abuuray isdiididda la dhex dhigay dadka isku afka iyo isku abka ah. iskama garan kuwa la moodsiiyey inay ka sarreeyaan dadka ay dhulka ku wada dhaqnaayeen ee ay ku wada noolaayeen nabadda dhisayaashani ka hor. dhegta ayaana dhiigga loo daray Tuutsigii markii ay dhisayaashu dalka ku wareejiyeen kuwii ay u sameeyeen taariikhda dhoobdhoobka ah ee gacan ku rimiska. markii 1959kiina waxaa dhintay in ku dhow 20,000 oo qof oo reer Tutsi ah oo u dhintay madaxtaag iyo qabeenaad la huuyay. waxaana gadooday qolada Hutuuga ah ee loo sawiray in ay dambeeyaan oo ay dulaysan yihiin iyaga oo weliba tirada ugu badan dhulka ah. markii dambena 1994 eelkii ay reebeen social engineerska ayaa leedhka loo kiciyey oo xiise geliya xasuuq ay ku leedeen 1 milyan oo madax ah. waa mashaqada ay qaabeeyeen social engineerska welise lama dhaadin halka sartu ay ka qurunsan tahay. dhisayaashu ama social engineerska tarbeeneedkaasi ay yabyabeen halkan ayay ka hirgeliyeen. hadda uma socdaan taas aan idinku celiyo qaabeynta cusub ee hadda hortiina ka dhacaysa mar labaad. jabkiinii kadib iyo wejiga cusub ee loo samaysanayo mustaqbalkiina umadeed, qoladaasi waxay tale ay ku yiraahdeen Soomaalida dhabaha qura ee lagu qaybin karo laguna laciifin karo waa qabiilka oo si uu ah awood ilaashaday abkooda iyo isirkooda oo maanta dunida ka tirtirantay. cid laftinimadeeda ku dhaadataaba ayaa loo adeegsanayaa si xun si ay hadhow ay u nacaan qabiilka jiritaankiisa. waa dhagax ama fargan laba shimbirood lagu wada dilayo, mid lagu qaybinayo iyo mid dambe oo isirkoodii iyo nasabkoodii lagu burburinayo. marka la nacsiinayo si fudud ayaa looga dhaqaajin karaa qabiilka, marka la dhaqaajiyana sideenna ayay noqonayaan bilaa nasab. dad bilaa nasab ahina ma lahan jiritaan sugan. cid kasta oo aanan lahayn jiritaan suganina waxay u nugushahay in la dhaqan dooriyo loona dhaqaajiyo jihadii la doono. taas ayaa keentay nidaam cusub oo federaaleyna in lagu dhiso qabiil. tan looga dan leeyahayna waxay tahay in 30 sano oo ay ku jiraan dawakhaad iyo iska daba wareeg aanay dan iyo dowladnimo ugu jirin. tan kalena waxay ka fikirayaan in aan qabiilada isku abtirsadaa aan lagu ururin hal maamul goboleed oo mid kastaaba lagu dhex barxo dad kala abtirsiin ah oo kala duwan. taasi waxay keenaysaa muran joogto ah oo ka jeedinaya midnimadooda iyo sidoo kale dhismaha awoodooda. sidoo kalena waxtarka ugu weyn waa in maamul goboleed kasta gaar looga fushado danaha iyo kheyraadka ku duugan dhulkooda. mid walbaana midka xigta ayuu ku noqonayaa laf dhuun gashay. marka uu mid naga careysiya kan ku xiga ayaana maslaxaya. waa sidii ay u qaabeeyeen waqtigii qaybsiga qaaradda madow. waxay ku dambeynayaan inta ay xusayso heestan aad moodo inay si u saadaalinaysa suuradda dambe ee ay Soomaali yeelan doonto. gebi ka dheer, guri ka dumay, gacan suntiyo, gafgaf lagu sixiyo, godob dhashiyo, tala wada guracan, gacal kala lumiya geed ka baxay, gudin ku taal, gadawyo isku maran. haddaan la isla garan dadka kala go iyo gabar rag isku dila, waxba kama gelina guur bay rabtaa. Soomaalay murtidu garashay rabtaa. Soomaalay geyigu gurmud buu rabaa. halkaa ha inoo joogta qaybta xigta ee sheekada ku saabsan mashruucii la dagaalanka nuurka. sheekadaani waxaa qoray Cabdiraxmaan Cismaan Jaamac. qaybta xigta intaan ku kulmi doono nabadgelyo.